anti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Bilan Radio wararka maanta aan idin hayno waxaa kamid ah xog ku saabsan waxa looga hadlayo shirka golaha wada tashiga qaran ee maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Roble oo kulan hordhac ah la qaatay madaxda maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Beledweyne iyo maamulka gobolka Hiiraan oo sheegay inaysan aqbali doonin qalqalgelinta amniga magaalada Beledweyne hawlgalka hadda aan ku jirana asagoon afjarmin kama laaba doono hadii alla yidhi dadka sida raqiiska u fakaraya oo meelaha ka soo hadlaya iyo sidoo kale faahfaahin ka soo baxaya dagaal beeleedyo ka socda gobolada Nugaal iyo sidoo kale Sool واسنين تاريخ ذا كوب باجن تاي سد حدا بيشة كوبات سردا لبكون لبي لباتن أنت عاد مقشين وحياين قارك من ورك كمان تاندين هنو أدير جروبة السجيو لما يسترن وحنكون بالله بأن حكوا سابسن وحلو جهد الشركة جراها ولا تشيك قرن إلا جوا ما أنت إنه كفر من مجال ذا مقدشو ما أنت وسنين هيا وحلو جوا إن مجال ذا مقدشو وشركة كفر ما جراها ولا تشيك قرن وشركة دومير رئيس الوزراء حكومة دحيل جارسين محمد حسين روبلي madaxda shanta maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkan oo kol hore ra'iisul wasaaruhu oo iclaamiyay ayaa qorshuhu waxa uu yahay inuu furmo 27 bishii la soo dhaafay ee December ee sanadkii tagay balse dib ayuu u dhacay waxaana shirka maanta looga hadlayaa amniga guud ee dalka saxitaanka habraaca doorashooyinka iyo sidoo kale in waqti cayiman lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka xubnaha golaha wada tashiga qaran ayaa dood adag ka yeelan doona caqabadaha ka haysta doorashooyinka sidoo kalena waxa warar soo baxay ay sheegayaan in dowlad goboleedyada qaar ay doonayaan in hal deegaan doorashadu ay ku qabtaan magaalada Muqdisho ayaa waxa laga dareemayaa u diyaargarowga shirka golaha wada tashiga qaran waxaana shirkaas isha ku haya shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka ee taageerada siya Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay waxa uu la kulmay madaxda maamul goboleedyada sida Galmudug Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabelle oo kulankan hordhac u ahaa shirka golaha wada tashiga oo dhawaan lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho kulankan oo ka dhacay goobta ay degan yihiin madaxda maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa looga hadlay furitaanka shirka golaha wada tashiga qaran iyo in lagu dhameeyo dhammaan tabashooyinka jira dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana la filayaa in maanta shirkaas uu furmo oo ay isha ku wada hayaan dhammaan daneeyaasha arrimaha siyaasadda Soomaaliya si waxa ka soo baxa ay u noqdaan kuwa mira dhal ah markan waxaan eegaynaa xaaladda wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Beledweyne iyadoo maamulka gobolka Hiiraan ay sheegeen in aysan aqbali doonin qalqalgelinta amniga magaalada Beledweyne kadib shaqaqooyinkii magaalada Beledweyne ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay xaqiijinta amniga guud ee magaalada Beledweyne isaga oo sheegay in la doonayo in la soo afjaro cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso amniga magaalada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan warar ayaa waxa ay sheegayaan in xalay magaalada ay soo galeen ciidamo uu hogaaminayo Nuur Dheere kuwaas oo kol hore weerar ku qaaday kolayo ka tirsan ciidan la sheegay inay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan xaaladda magaalada ayaa ah saaki mid degan walow maalintii shalay ahayd wararka ka imaanaya ee sheegayeen in halkaas ay ka dhaceen dibadbaxyo iyo sidoo kale fowdooyin la sheegay in la doonayay in lagu dhameeyo dhammaan xiisadahan balse maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay dhameeyaan xiisadan isla markaana ay soo afjaraan qof walba oo qalalaasta ka geysanayo gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dadka qaska ama fowdada ama amni xumada ka wada magaalada ay la mid yihiin kooxaha nabadiidka isla markaana ay soo afjari doonaan ciidan ka soo baxay magaalada Beledweyne oo u socday howlgal nimankii nabadiidka ahaa oo ku sii soco inay ku gudbeen deegaanka dhinaca Feerfeer bal intii kale waaba yimaadeen in ugu socday howlgal oo wadada maraya ayaa jidka loo galay waxa u galayaana waxay yihiin ma naqaan waxay diidan yihiin ma naqaan
waxa ay yihiin waa naqaanaaye waxa ay diidan yihiin aanaan garanay ciidamada xabadi ku socotaa markii la yiraahdo gurmadaan ku imid waxaan ballan qaadayaa cid kasta oo nabadiid u kaalmaynaysa sida nabadiidkiina oo la diriro hawlgalka hadda aan ku jirana asagoon afjarmin kama laaba doono haddii alla idin dadka sida raqiiska u fakaraya oo meelaha ka soo hadlaya oo maskaxdoodu aysan korsanayn waxaan u soo jeedinayaa maskaxdoodu inay korto wareedhe dawladnimo adduunka lagu xiriiraa nidaam la garanaya waaye hadduu doono si kasta ha u tabar yaraado tuulo haddii maamul ka jiro tuulo haddii maamul ka jiro tuulo oo dad ajnabiya u yimaado maamulkaas tuulada ka jira soo ula xiriiro iyo wuxuu u sheego garanayaa war reer meel taagtaagan oo qoryalo taagtaagan see adduunka loo xiriirayaa see nidaam iyo kala dambayn looga shaqaynayaa see looga shaqaynayaa ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa inaan shabaab la dagaalanno ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa inaan nidaamka adkayno ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa in nidaamka dawliga iyo kala dambayntu shaqayso inaan amniga ka shaqayno ma beledweyne looga mudaharaadayaa oo la diidan yahay see u fakarayaan dadka waxaa diidani see u noolaa rabaan ugu dambeyntiina faahfaahin ayaa waxaa laga helayaa dagaal beeleedyo ka socda gobolada Nugaal iyo sidoo kale Sool ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleedyo ka socda deegaanada Saaxmeegaag Sankajabiye oo ka kala tirsan gobolada Nugaal iyo sidoo kale Sool inkastoo aan ilaa iyo hadda si dhab ah loo ogeyn khasaaraha dagaalkaas ka dhashay haddana waxaan warar aan helnay ay sheegayaan in 12 qof uu dhaawac soo gaaray halka 6 kalena ay ku dhinteen 12 qof ee ku dhaawacantay ayaa la sheegay in la gaayay cisbitaalada ku yaala magaalooyinka Garowe iyo sidoo kale Laascanood iyadoo oo dagaaladaas ay ka soo baxayaan khasaare kala duwan wili wararka ka imaanaya odayaasha dhaqanka ayaana dalbanaya beelaha dagaalamaya inay joojiyaan colaadaha Garaad Jaamac Ismaaciil iyo salaadiin kale oo ku sugan aaga uu dagaalka ka socday ayaa waxa ay sheegeen inay ku hula yihiin sidii ay u kala dhaxgeli lahaayeen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya halkaas Garaad Jaamac ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyay in dagaalka uu istaago isla markaana ay baajiyaan in dhaawac kale ama dhiig kale uu ku daato dagaaladaasi sidoo kale xaaladda ayaa hadda waxa la soo sheegayaa inay tahay iyaduna mid degan guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Bilan Radio waa inaga intaas daawada waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka si aad noo dhiirigelisid fadlan boggeena like saar muuqaalkana sii share garee mahadsanid daawade